guud ahaan caalamka haweenka waa lafdhabarta bulshada. Haweenka ayaa waxa ay inta badani u dhabar adeegaan qaarkood sidii ay nolol maalmeedka qoyska iyagu ku soo saari lahaayeen, halka qaar kalena ay zawjkooda amaba ay caawiyaan raggooda. Tani waa hooyo Soomaaliyeed oo dhowr caruur haysata, lagu magacaabo Saxan Cabdi. Waxa ay ku nooshahay magaalada Biyo-Madow ee xigta koonfurta Wajeer. Waa qofka kaliya ee qurxinta dumarka ka shaqeeya magaalada Biyo-Madow, iyadoo aysan qabin goob u gaar ah oo ay ku ganacsato amaba goobta gabdhaha lagu qurxiyo ee loo yaqaano saloonka. Waxa ay ku dhex shaqaysataa gurigeeda, iyada oo marka ay kastamaha ama dadka macaamiisha ay u imaadaan ku qurxisa gudaha gurigeeda qayb ka mid ah. Hooyadani ayaa waxaan la kulmay xilli ay ku howlaneed shaqadeeda ama howlaheeda, taasoo ay qurxinaysay mid ka mid ah gabdhaha magaaladaasi oo isu diyaarinaysay inay ka mid noqoto aroos ka dhacay magaaladaasi. Waxaan ka waraystay waxa ku dhaliyay in ay gurigeeda qayb ka mid ah ay ka dhigato goob ay cilaan ku saarto, iyadoo ay u sii dheer tahay hawsha qoyska. Waxa ayna iga warbixisay waxa ku kalifay in ay noqoto cilaan saar. Saxan Cabdi Iimaan. cilaankan inaad u marisaanaad fiirsan rahaye ku celi magacaaga. Magacayga Saxan Cabdi Iimaan. meeqa sano ayaad shaqadan cilaan saarka iyo dharka la hagaajinay awda? cilaanka ma qaraan bartay, laakiin inta hadda marinay 10 sano. laakiin marka aan bartay ama yaraan bartay. iyo xageed ku shaqeysaa marka maxaafada lagu yimaadaan? gurigeyga lagu mariyo. maxaa kugu kalifay inaad cilaanka mariso? cilaanka inaan mariyo waxa uu qabtay ilmaha ku korsada. meeqa caruur haysataa? caruurtayda waa 5. cilaanka aad u marisaa yaa inta badan ku soo aado cilaanka aad u saartaa? inta badan waxaan u mariyaa aroosada. cilaanka aad mariso magacuu ku leeyahay ama see loo kala mariyaa? cilaanka waxaa loo kala mariyaa baxyara la dhahaa kuwa la weynayaa baxweynaha. cilaan waxaa jirta oo la dhahaa cilaan hindi oo qasan oo qofka aad u mariyo cilaan labis la dhahaa. kan biliis kolmiyada la dhahana muxuu yahay? kan biliis kolmiga waa ku asaga intii la mariyo markiiba 2 maalin oo la dhaqaa. marka gabdhaha kay inta badan jecel yihiin ay marsadaan? gabdhaha waxay jecel yihiin cilaanka oo haafhaafka oo maxaa la dhihi jiray oo maaragtay fashionka oo ka bixinin harka ay jecel yihiin. waa tahay marka meel kale oo lagaaga imaado oo ka baxsan magaaladan ama tuulooyinka ma jirtaa? tuulooyinka anaga un baa laga imaadaa oo noo dhadhow Daabley, meelaha caday dheer, tuulooyin badan oo noo dhadhow. tuulooyinka laga keena aroosada. tuulooyinka laga keena aroosada. marka guriga ayaad ku marisaa, ma qabtid goob ganacsi miya? gurigeyga ganacsi aan ku mariyaa. kaliya hooyadani kama shaqaysa cilaan saarka ama qurxinta gabdhaha, sidoo kale waxa ay hagaajisaa dharka Soomaalida ay u taqaano karkariska, amaba waxa ay soo iibisaa maracad, iyada oo markaasi ka soo dhigta maryaha ay dumarka xirtaan kuwa ugu quruxda badan. waxa ayna adeegsataa dhowr kiimikool oo kala nooc ah, taasoo ay sheegtay in xitaa mararka qaar ay dhibaatooyin kala kulanto, maadaama ay caruurta dhexdooda ay ku hagaajiso kiimikoolkan la isku daro oo lagu hagaajiyo dharka dumarka ay xirtaan. cilaankan waan saaraa, maryahana waan kariyaa. sidee loo karinaa maryaha mise maxay tahay waxa laga karinayo? maryaha alaaba la isku dadari, rangi, koola, cusba, intaas la isku dari. maradii waxaa bileyna soo gadi, waa xirkaa la soo gadi, waa la xirxiri. marka kadib biyaa la karkarinaa, rangiga marka kadib la gelina. marka maradii cadeed ayaa qof walba nooc oo loogu sameeyaa? marada cada kalarka doonta ka dhigi. rangiyaha nooc walba ay leeyihiin, buluuga, cagaarka, madowga, qaxwada, nooc walba. baabolka, oranjiga, nooc walba ay leeyihiin. cilaankan waan mariyaa, maryahana waan kariyaa. haye maryaha marka ma dadka ku keensadaan mise adiga ayaa hagaajiso waa laga gataa? maryaha waa laga gataa, daaqada iyo ku aan soo gataa waa laga gataa. waanaan qofkii raban waan u kariyaa oo lacag la bax. waxaa laga yaabaa marada markaad kariso inay si kaa noqoto oo ka halawdo, oo ruuxii uu ku dhaha haddana ku celi mar labaad. waad karin haddana mar labaad dabkaad shida, haddana waad ku celin. taasaa ugu dhib badan. haye marka rangigan iyo alabtana isku dadarta xageed ka keenta yaa ka caabiyo ama xageed ka soo gadataa?
inta diga caawisa malaha waxaan ka soo gataa qaxootiga. haye shaqadan qasaaradeeda iyo faa'iidadeeda kee badan? wallaahi way qasaaro iska jirtaa marmar laakiin waan ka faa'iido waan ku qasaaro. marka waxaa laga yaabaa rangiga aad soo gaday inuu biyo gaaro oo ka halaabo oo daadis intaasoo ku rangiga ka soo bixiso. weli ma aragtay cid ka caawisa arrinkani inaad qalabka dharka lagu hagaajinayo? maya weli ma arkin. ugu dambeyntiina waxa ay baaq u soo jeedisay madaxda laga soo kala doortay dowladda countiga Wajeer, mudanaha laga soo doortay koonfurta Wajeer iyo sidoo kale wakiilada haweenka ismaamulka Wajeer in ay ka caawiyaan sidii ay ganacsigeeda ama shaqadeeda ay ku horumarin lahayd si loogu furo goob ay markaasi ku shaqaysato si aysan caruurta dhibaato uga soo gaarin maadaama waxa ay qasaysa ay tahay dhowr kiimikool oo la isku daray. meel maryaha lagu kariyo biyaha chemical waayo waxa lagu daray rangiga ilmaha naftirkooda aad ay u dhawaan meel gooni oo lagu kariyo in la sameeyo oo maxay ahaday in dad aan bara oo magaalada aan bara oo la diiwaan geliyo oo maxalli jiray dawladda iyo countiga ay kulli ay diiwaan geliyaan aad baan uga codsanayaa. Umin reebta waxaan ka codsanayaa meel ganacsi oo cilaanka ku saaran ay sameeyso rangiga lacagtiisa aad ay u badan tahay marmarka qaar ma awoodi kariyo lacagtiisa ma gadi kari inay raagiga igu caawiso inay meel ganacsi oo ku shaqaystay ay sameeyso inay haday hay'adaha igu xiriirin karto oo farsamada ruuxa dadka raba ay igu xiriirin karto waxyaalo badan aan uga baahan. si kastaba ha noqotee hooyadani ayaa waxa ay isku dayaysaa sidii ay ku soo saari lahayd maryaha dumarka kuwa ugu quruxda badan oo ay warshadaha soo saaraan taasoo loo soo iib doonta balse waxa ay caqabad ka haysataa helidda chemical-kan la isku dardaro taasoo ay ka soo iibiso meel 70 kilomitir u jirta magaalada Biimadow waa xeryaha qaxootiyaha ee Dadaab waxa ayna madaxda ka codsatay in la soo caawiyo. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ismaamulka Wajeer.